diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Ceerigaabo waxaana soo dhaweynta siyaasigan meel jahada galbeed ka xigtay magaalada Ceerigaabo ugu sii diyaar garoobay maayarka Ceerigaabo mas'uuliin xisbiga wadani ka tirsan xildhibaano golayaasha deegaanka Ceerigaabo iyo golaha wakiilada ka kala tirsan culimada diin madax dhaqameed waayeel iyo waxgarad kale haween iyo dhalinyaro waxaana halkaas hadallo soo dhaweynta siyaasigana ka yidhi maayarka Ceerigaabo Ismaaciil Xaashi Nuur gudoomiyaha xisbiga wadani gobolka Sanaag Daade Jaamac Xasan iyo waliba xubno kale oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada halkaas ku sugnayd waxaana hadalloodii ka mid ahaa dadkan halka jooga reer Ceerigaabo oo reer Ceerigaabo dhan ka kooban waxaan ku soo dhaweynaynaa Mustafa Cabdi Ciise barasaabkii gobolka Waqooyi Galbeed Hargeysa oo maanta inala jooga kana soo yimi meeshii uu joogay waxaanu ku leenahay wiilkan soo dhawow waxaanu kala ku leenahay asxaabtaadii deenta ku hadhayna u yeedh waa soo dhaweynaynaa maanta runtii waxaanu soo dhaweynaynaa Mustafa Shiineed Mustafa Cabdi Ciise waana barasaabada ee Somaliland waxaanu ku soo dhaweynaynaa maanta gacmo furan isaga oo ku soo noqday gobolkiisii iyo xisbigiisii ku soo noqday xisbiga wadanina waanu ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaa raggu waa caynka shalay labadii isku dhilayay iska soo horjeeday ba maanta siyaasadda meel ka wada arki kara gudoomiyayaasha Mustafa Cabdi Ciise oo maanta aanu halkan soo dhaweyntiisii anagoo reer Sanaag aanu kala xidhin ku soo dhaweynayno waxaan leeyahay marka hore gudoomiye soo dhawow gacmo furan qalbi furan ku soo dhawow anigoo ku hadlaya afkii dhaqanka afayeenkii dhaqankana ah ee gobolka farxad way bay noo tahay runtii ilaa shalay reereyn baanu ku jiray mar alaaliye markii la maqlay gudoomiyihii xisbigii bahweynta Somaliland ee midnimada iyo isbedel doonka qaranka uu ku soo biiray gudoomiyihii aad iyo aad bay heegan loo ahaa farxad weyn iyo reereyn bay u noqotay shacbiga reer Somaliland meel kasta kala joogan gudoomiye aad iyo aad baa reer Ceerigaabo oo dhami ay ku soo dhaweynayaan caleemo qoyan ayay kugu soo dhaweynayaan qalbi furan bay kugu soo dhaweynayaan niyad wanaagsan bay kugu soo dhaweynayaan gudoomiyihii hore ee Madoobe Sheekh aad iyo aad bay Ceerigaabo heegan ugu tahay aad bay u soo dhaweynaysaa gacmo furan ku soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow dalkaaga ku soo dhawow dadkaaga ku soo dhawow aad iyo aad baan kuugu hambalyeynaa oo xusbiguna aad iyo aad buu kuugu hambalyeynaya wax badan baanu lahayn Mustafa Tolow goormo xaqan u soo dhaqaaqaya maanta farxad aad iyo aad u weyn bay noo tahay alxamdulillah rabbil caalamiin soo dhawow aan ku leenahay Mustafa Cabdi Ciise inaadeer soo dhawow ku soo dhawow gobolkeennii ku soo dhawow degmadeennii Ceerigaabo aad iyo aad baan ku salaamayaa aad iyo aadna waan ku soo dhaweynayaa Mustafa wuxuu ahaa lafdhabar buu kulmiye u ahaa maantana wuxuu noqon doonaa insha Allah taala lafdhabar wadani uu noqon doonaa insha Allah taala Mustafa soo sheegayna maanta نقول وايا قلنا سومالان كنول كرتيديسا أقوانتيسا شخصيتيسا كرتيديسا أنت بوردنا هذه هذا سودو مصطفى وقلت طمنتنا سياسي مصطفى عبد عيسى شين وهالكاس كهضلي سلمر كان بلشده سودو ويسي هالكاس وقام هاد عليي sidoo kale ku xog warramay ujeedada socdaalkiisa xilligan ayaa wuxuu yiri 2010 halkan aanini Ceerigaabo aad looga xog badan yahay maaragtay xisbiga kulmiyaanini aakhirkiina doorashada waxa ku dhamaatay anagu isku barbar dhacnay maanta waa tii oo kale waxaan iman doonaa gobolka waxaan maanta iyadoo wadani ku xog badan yahay waxaan gurmad wahay wadani inuu soo baxo waxaan ridaynaa xisbigii kulmiyihii aan ridaynaa maaha kulmiye Axmed Maxamed Siiraaye waa kulmiye cusub hadda soo baxo niyo kulmiye la yiraahdo kulmiyaha cusub been ridaynaa waxaanu ridaynaa kulmiyaha cusub wuxuu ku abtirsaday galbeed wuxuu ka istaagay Muuse Biixi Boorame wuxuu yiri markii ugu horeysay madaxweyne murashax madaxweyne xigeen ay Gabiley iyo Boorame yeeshaan dalkuna inta maaha maadaama ay taasi timidna annaga markii ugu horeysay aan imanayo bari oo aan leeyahay waxaan ridaynaa murashax madaxweyne iyo murashax madaxweyne ka soo jeeda galbeed ka soo jeeda anigoo ku hadlaya awoodii iyo codkii cududii shacabka gobolada bariga Soomaaliland waa Cabdullaahi Xasan Darwiish Somali Cable TV Ceerigaabo